iskuulkan Al-Khayr Gym and Kung Fu runtii waa iskuul muddo dheer imika soo jiray arday badanina ka qalin jabisay runtiina sameynayay muddada uu soo socday korukac haddii ay tahay aqoonta lagu baranayo iyo haddii ay tahay tirada ardayda ka qalin jabinaysa iyo haddii ay tahay noocyada barnaamijyada la isticmaalayaba iskuulkani waxa uu soo bilaabmay ilaa iyo qiyaastii sida aan bilowgii maan joogin aniga laftigaygu raggii dhexda kaga soo darsamay baan ahaa ilaa 2008 iyo 7 meelahaas waxaanu soo bilaabmay si aad u simbala oo halkan iyo imika qaabka uu leeyahay iyo barnaamijyada runtii lagu qaato iyo meesha lagu qaataba aad uga muuqaal duwan muddadaas wixii ka dambeeyay waxa uu sanadba sanadka ka dambeeyay sameynayay runtii horumar
waxaanu fursad siiyey dad badan oo dhalinyaro ah amase dhalinyariya odayaalba leh oo ka faa'iidaystay oo anuguba aan ka mid ahay waxaan anugu ku soo biiray February horaanteedii 2011 waa muddo imika malaade 13 sano meelahaas laga joogo waxa aan runtii ka qaatay suuman dhowra walow dee malaha niman baan ahayo ka shaqaysoontoodu aanay dee active ahayn haddana barnaamijyo aad u tiro badan baan runtii ka soo qaatay muddada intaa leeg muddo yaroo gaaban oo runtii aan sidaa u badnayn mooyaane inta kale runtii rag dadkii ka faa'iidaysanayay baan ka mid ahaa waxaanan runtii qabaa in iskuulkan aad looga faa'iiday ha loo kala badsado sida loo kala da'yaraa ama loo kala dadaal badnaa laakiin waa iskuul runtii aad looga faa'iiday waxyaabaha ugu badan aan isleeyahay uu soo kordhiyay waxaa ka mid ah fanka noocana iyo aqoonta noocana ee nolosha bini'aadamka looga baahan yahay haddii ay tahay defense ama self defense difaacu can nafs iyo haddii ay tahay fitness exercise ba waa runtii wax ku cusub u ahaa deegaankeenna iyo dadka Soomaaliyeed halka maanta laga yaabo in wacyigaasi uu aad kor ugu kacay halkii beriga uu taagnaa oo qof ay u suurowdo iyo qof aan ay suuroobinba aan maanta la yaabi karin in qofku u baahan yahay arrintan oo kale waa arrin runtii aan la yaabi karin waxtarka ugu weyn uu geystay waxaan ku qiyaasayaa inay noqon karto in wacyiga soo kordhiyay baahida qofka bini'aadamka ahi uu qaba ee ka maqnayd ee deegaankeenna aan ka jirin inuu soo kordhiyay oo kor u qaaday wacyigaas oo dareenka koriyay iyadoo ay dheer tahay weliba in dad si dhaba uga faa'iideeyeen runtii ay jiraan oo imika aan arkayno bandhiga dhalinyaradu ay sameynayaan in uu ka muuqdo technique iyo qaabab qofku markay wax ku yimaadaan ama lafiisa la damco in wax la gaarsiiyo uu isu difaaci karo oo wax isaga celinayo oo aad u simbala oo aad arkayso dee inay runtii aqooni ka muuqato macallinkuna khayr allaha siiye waa runtii waxaan isleeyahay duruufo badan buu la soo maray oo ugu dhabar adeegay halka maanta aad markaa arkaysaan in dee runtii dhallinyaradaas iyo qaar kaloo tiro badani oo waxaa sawiradooda iyo xafladahoodaas ku qalin jebinayay way ka wada faa'iidaysteen waxaanu runtii isla markaana muujiyey in barnaamijkan oo kale ama iskuulka noocana ay waliba ka faa'iidaysan karto ilaa kuwii primary-ga iyo dugsiyada hoose dhigta ee caruurta ah da'aa dhexe dhalinyarada iyo dadka waaweyniba oo anigu aan ku jiraa marka waxa aan runtii xoojinayaa macallinkana runtii aan ku dhiirigelinayaa dadka runtii magaalada iyo deegaankana aan runtii kula talinayaa inay si fiican uga qayb qaataan waa arrin loo baahan yahay isla markaana waa wax la qaban karo oo qof waliba uu qaban karo oo uu samayn karo oo uu baran karo una baahan yahay waxa aan iminka hindisaynay haddii ilaahay idhaahdo marka jimicsi iyo runtii la soo qaado taladiisa inta badan dhalinyarada isxigsiisa laakiin waxa hadda aan insha allahu iskuulku diyaarinayaa barnaamij dadka waaweyna waxbarashada dadka waaweyn soo maydaan maqli jirin barnaamij dadka waaweyna oo iyagana da' walba maca dadka waaweyne ay ka faa'iidaysan karaan si intifaaciisa iyo nacfigiisu uu caam u noqdo macallinkana waxaan runtii iyo ardayda runtii ka faa'iidaysatayba ku hambalyeynaya in dadaalkaas iyo
adkaysigaas ay barnaamijkan u galeen khayr baan idin rajaynayaa cabdiqaadir hay khalaasiyo